sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda iiraan ayaa isagoo la hadlay telefishinka Press TV waxa uu shaaciyey qiyaas faahfaahsan oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray ciidamada Mareykanka toddobaadyadii ugu horreeyay ee dagaalka. Waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixinayaa suuragalnimada marka in Mareykanka khasaaro xooggan uu soo gaaray bilowgii dagaalka, laakiin gabi ahaanba ay qariyeen. Warbixintan ayaa lagu muujiyay in kaydka difaaca ee ciidamada cirka ee Mareykanka iyo Israa'iil gabi ahaanba uu yaraaday, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda Iiraan inay saldhigyo badan ay gaaraan, sidoo kalena gantaalada qaar ay ku adkaatay nidaam difaaciidyadaas inay ka hortagaan. Xogta sirdoon ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 3,000 oo askari ay ka dhaawacmeen Mareykanka toddobaadkii ugu horreeyay oo kaliya, taasoo ka dhigan marka khasaare culus Mareykanka inuu gaaray sida sirdoonka dowladda Iiraan uu sheegayo. sidoo kale waxay sheegeen dhaawaca 200 oo askari inuu ka badan yahay, laakiin 200 oo askari la dilay. arrintan waxay ku soo beegantay shalay iyadoo Mareykanka uu baahiyay in 13 askari ay ka dhinteen 200 oo kalena ay dhaawacmeen. qiyaasaha marka xisaabaad la isku dhifanayna meesha 200 oo ruux ay ku dhaawacantay, tirada dhimashada ugu yaraan 5 qof hadii loo qaybiyo wadarta 200 xogaa dhinacaas ayaa lagu qiyaasaa oo dadka wax falanqeey waxay leeyihiin goobta marka ay ku dhaawacmaan ilaa 10 ruux waa suuragal laba kalena inay dhimatay marka la eego khasaaraha dhaawaca inta uu gaarsiisan yahay. Iiraan markaad waxay leedahay 3,000 oo askari ayaan toddobaadkii ugu horreeyay oo kaliya ka dhaawacnay. sarkaalka u hadlay dowladda Iiraan ayaa sheegay sidoo kale Mareykanka inuu lumiyay in ka badan 150 gantaal oo ay doonayeen inay ku soo weeraraan dowladda Iiraan, laakiin qaarkood dib ugu laabtay bartilmaameedyadii markii hore laga soo tuuray ama goobihii laga soo riday. 23 nidaam difaaceed oo cirka ah oo Patriot ayay sidoo kale sheegtay dowladda Iiraan inay ka burburisay Mareykanka. Waxaa kaloo ay sheegeen inay soo rideen 37 diyaaradood oo isugu jira helikobtaro, diyaarado droonisa iyo diyaarado shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka. warbixintu marka waxay xusaysaa 43% kaydka hubka ee dowladda Mareykanka in la baabi'iyay sida dowladda Iiraan ay sheeganayso, waxaana warbixintan baahinaya telefishinka Press TV la yiraahdo. marka sheegashadan laga yimaado Mareykanka intaan in ka yar ayuu qiranayaa, macluumaad rasmi ah oo xaqiiqo ahna lama hayo. laakiin markaad eegto khasaaraha maaliyadeed ayaa aad u badan inta la hubo oo kaliya waxaa xisaabaadka la isku dhiftay oo la diiwaan gelinayaa xarumihii ay Iiraan ay gaartay ee saldhigyadaha iyo qalabkii yaalay. dagaalka soo bilowday 28 February ayaa socda maalintiisii 18aad, marnabana laguma xisaabtamaynin in dagaalka intaan uu gaari karayo marka la eego bilowgii iyo sida Israa'iil iyo Mareykanka ay filaysanayeen. weerarkan iyo dowladda Iiraan sheegtay 170 caruur oo dugsi dhiganayay ama iskuul inay si ula kaca u dileen Israa'iiliyiinta ayna ku dhinteen xilli ay ku sugnaayeen koonfurta magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan. laakiin Iiraan ayaa taa ka jawaabtay oo waxay sheegeen caawa inay qaadeen mawjadii 59aad oo dhanka weerarka ah. qaybaha kale haddii aan eegno, madaxweynaha dowladda Mareykanka wuxuu sheegay inay si dhammaystiran ay u burburiyeen ciidamadii amniga ee dowladda Iiraan iyo awoodooda, sidoo kalena wuxuu yidhi ma jirto wax kaloo inoo harsan. toddobaadkii hore ayuu sidaani oo kale yidhi madaxweyne Donald Trump, isagoo sheegay in aysan jirin meelo kale u harsan oo ay burburinayaan, laakiin ilaa iminka waxay Mareykanka iyo Israa'iil maalin kasta ay sheegaan inay burburiyeen xarumo kale. si gaar ahaaneed waxay yiraahdaan waxaan baabi'inay xarumihii gantaalada laga soo tuurayay ee dowladda Iiraan. haddana dowladda Iiraan habeen kasta waxay qaadaa mawjado weeraro ah. Mareykanka ayaa waayay taageeradii uu ka filayay dowladaha gaashaanbuurta NATO, sidaas oo kale wuxuu waayay taageeradii uu ka filayay dowladaha Khaliijka, waxayna dhammaantood ay diideen in dagaalka qayb ay ka noqdaan. sidoo kalena waxaa jira khilaaf gudaha oo Mareykanka waxaad moodaa inuu weynayo saaxiibadiisa. Mareykanka wuxuu inta badan ku faanayaa in ciidamadii badda awoodoodii la baabi'iyay oo dowladda Iiraan ah. maanta ayuuna si cad u sheegay mar kale in goob u harsan aanay jirin. waxa la isweydiiyey marka ma waxay doonayaan tani inay u noqoto guul siyaasadeed oo uu madaxweyne Trump doonayo dagaalka in la soo gabagabeeyo. laakiin halkee laga bilaabayaa? wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa marar badan ku celiyay in marnaba dagaalka aysan iyaga dalban in la soo gabagabeeyo ama wada hadal la aado. dhacdooyinka la diiwaan geliyay dagaalka intuu socdo waxaa qayb ka xiritaanka marinka Hormuz. Mareykankana taas khasaaro weyn ayay ku tahay, maxaa yeelay ma awoodo si buuxda inuu marinkan u furo. tanina waa halbowlaha tamarta dunida marka la joogo marinka Hormuz. Iiraan dhankeeda weli weeraro ayay samaynaysaa, diyaarado daroonaysa iyo gantaale ayay weli isticmaalaysaa, xitaa garoon diyaaradeedkii Dubai iyo garoomo kale iyo saldhigyo iyo xitaa dekada ayay bartilmaameedsanaysaa dowladda Iiraan. marka la eego gudaha dalka Iiraan iyo dhibaatada ay la kulantay inta dagaalka uu socdo waxay kala siman tahay Israa'iil. burburka gudaha oo kaabayaashii, bangiyadii iyo xarumihii dowladda ayaa gabi ahaanba la beegsaday tan iyo dagaalka markii uu bilowday. iyagana waxay burburiyeen xarumo muhiim ah oo kuwan u dhigma oo ku yaala magaalooyinka Haifa iyo Tel Aviv. marka la eego Iiraan waxay dareemaysaa kalinimo caalami ah, laakiin Israa'iil
waxay helaysaa taageerada maraykanka iyo israa'il iyo taageerada sirdoonka reer galbeedka. iiraan, ruushka iyo saaxiibo la tahay iyo shiinaha, laakiin taageero yar ayay siinayaan oo waxaa lagu eedeeyey xitaa dhanka sirdoonka iyo inay ka taageerayaan, inkastoo safiirka ruushka u jooga magaalada london oo arrimahan su-aale laga weydiiyo xoogaa uu ka yara gaabsaday. sidoo kalena dalalka khaliijka ayaa si weyn uga soo horjeeda iiraan iyo duqaynteeda. dhanka gudaha marka la eego iiraan waxaad moodaa taageero xoogan oo shacabka inay helayso, kuwaas oo ku garab taagan waqti xaadirkan dagaalka dibadda uga imaanayo. iiraan maxay ka faa'iiday dagaalka ilaa iminka socda? iiraan wax badan way ku luminaysaa dagaalka, laakiin ilaa iminka kuma degdegayso wadahadal, waxayna awood u yeelatay in dagaalka uu sii dheeraado, waana faa'iidada koowaad marka laga hadlaya dhanka waqtiga dhinaca iiraan. dhanka juqraafiga iyo marka la eego kala fadhinta gantaaladana weli awood ayay u leedahay, oo gantaalada iiraan ayaa loo qaybinayaa waqooyiga iyo koonfurta israa'il. tanina waxay adkaysay in la burburiyo dhammaan saldhigyada dowladda iiraan iyo halka kaydka hubka u yaallo iyo goobaha laga soo tuurayo. sidoo kale dowladda iiraan waxaa lagu warramayaa in dhoofinteedii shidaalka weli si dadban ee u wado, oo 24 milyan oo fuusto ayaa la dhoofiyey tan iyo dagaalka markii uu bilowday. inta badanna shiina ayaa lagu warramayaa in uu dhoofsanayo shidaalkan. aragtidaada qaybta hoose ku reeb laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno, dowladda iiraan ayaa waxay bilowday in munaasabad aasa loo sameeyo dhammaan badmaaxiintii maraykanka uu ku dilay biyaha Sri Lanka. 100,000 oo qof ayaa ka soo qayb galay munaasabadda aaska loogu sameynayay ciidamada badda ee dowladda iiraan, kuwaas oo weerar xoogan la kulmay xilli ay ku sugnaayeen horaantii bishan biyaha badweynta India. markabkaas ayaa quusay sida la sheegay kadib markii maraykanka uu bartilmaameedsaday, waana 84 askari oo ciidamada badda ee dowladda iiraan ka tirsan, kuwaas oo 4 bishan March maraykanka uu ku dilay xilli ay markabkoodii dul saarnaayeen, qaarkoodna la waayay halka kuwa kalena ay dhaawacmeen. xitaa cadaadis ayaa dowladda Sri Lanka arrintan lagu saaray. weli dagaalka waa uu soconayaa, duqaymo ayaa labada dhinac ay isweydaarsanayaan. iiraan ayaa sheegtay saacadii lasoo dhaafay inay bartilmaameedsatay deegaano ku yaala magaalada Tel Aviv. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda iiraanna waxay sheegtay in Israa'iil iyo Maraykanka isku dayayaan in ay bartilmaameedsadaan goobaha dadka rayidka ku sugayeen si la isaga horkeeno dowladda iyo sidoo kale dadka shacabka. boqortooyada Sacuudiga waxay sheegtay caawa 7 diyaaradood oo daroonisa inay ka hortageen saacadii ugu dambeeyay iyo gantaalo, kuwaas oo suuragal ay ahayd in lagu bartilmaameedsado xarumaha shidaalka. Naciim Qaasim, xogayaha Xisbullahna dhankiisa wuxuu sheegay inay sii dagaalami doonaan, sidoo kalena ay ka hortagi doonaan qorshe kasta oo Maraykanka iyo Israa'iil ay doonayaan in ciidamada Israa'iil ay ku qabsadaan deegaano badan oo dhulka ah. arrimahan waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagaya insha Allah. aad baad u mahadsantahay. laakiin muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. nabadgelyo.